Si guud waxa kordhaya dhacdooyinka argagaxa leh ee ka dhacaya qaar ka mid ah gobollada dalka. Hore ayaa loo maqlay dhacdooyin murugo iyo naxdin leh sida aabbo Soomaaliyeed oo la gubay, carruur iyo haween la xasuuqay, kuwaasoo inta badan salka ku haya aana qabiil. Dhacdooyinkaas oo dhan waxay ka mid yihiin calaamadaha quusta leh ee muujinaya kala fogaanshaha bulshada colaadda ugubka ay ka dhex aloosan tahay. Maanta waxaa hortayada timid dhacdo kale oo murugo badan oo naxdin gelisay bulshada inteeda badan. Gabadh yar oo agoon iyo rajo ahayd kuna noolayd guriga abtigeed ayaa si naxariis darro ah loogu jirdilay, ugu dambeyntiina u geeriyootay. Haweenaydii dhibka geysatay ayaa la hor keenay maxkamadda magaalada Gaalkacyo, halkaas oo uu si rasmi ah uga bilowday garmaqalka kiiska marxuumad Sabriin, iyadoo loo soo bandhigay muuqaallo laga helay moobilka gabadha eedeysanaha ah. Intii uu socday dhageysiga maxkamadda waxaa lagu eedeeyay haweeneyda inay si joogto ah jirdil ugu geysan jirtay, iyadoo mararka qaar afarta addin ka xiri jirtay sida lagu soo bandhigay qaar ka mid ah muuqaalada. Waxaasoo dhan waa falal ka baxsan bini'aadantinimada, diinta iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida. Dad badan ayaa isweydiinaya xaaladda caafimaad nafsadeed ee haweeneyda ku sugan tahay iyo sababta ku kaliftay inay u geysato xumaanta intaas la-eg ilmahaas yar ee saqiirka ah. Xeer ilaaliye Muxubo oo soo bandhigtay caddeymo dhammaystiran iyada oo si geesinimo leh u muujisay faham iyo waayo aragnimo shaqo, waxay caddaysay inaysan suurtagal ahayn in cadaaladda laga baxsado, ayna diyaar u tahay in kiiskan si cad looga gudbiyo. ma garan karno hadee kale muuqiis uu noo muuqday laakiin inuu sidala socon maybe waa dhici kartaa. laakiin waxaanu maxkamadda horteeda keenay qof qorshaysan, xarga loo soo qaatay, baca loo soo qaatay, xiran nafta laga saarayo. qorshaha haray oo uu qareenku raadinayo baa isweydiina. ma jirto wax qorsho ah oo u dhimanaa eedaysanada, ma jirto ama uma jeedin ama eedaysanadayda ma ahay. ayay bay ku qaylinaysa. waxaana ka cadinay iyada ahayd, waxaa ka cadinay qorsheeda ma ahay. ayay bay ku qaylinaysa. waxaana ka cadinay iyada ahayd, waxaa ka cadinay qorshaysatay. waxaana la wadaagnay warqadii dhakhtarka. baco waa ay xidha, kuwana subka uga xidha, kuwana waxay uga xidhta afarta addin bay ugu xidha. kadibna waa ay qaraacday, wayna ceejisay, naftiina way ka bixisa. ayadaana duubtay oo isduubaysa. waa wax marka aad looga yaabo inuu qareenku yidhaahdo wixii halkaa ka muuqday ee indhaxumada ahaa ma aan arkaynin ama uma jeedin ama eedaysanadayda ma ahay. ayay bay ku qaylinaysa. waxaana ka cadinay iyada ahayd, waxaa ka cadinay qorshaysatay. waxaana la wadaagnay warqadii dhakhtarka. baco waa ay xidha, kuwana subka uga xidha, kuwana waxay uga xidhta afarta addin bay ugu xidha. kadibna waa ay qaraacday, wayna ceejisay, naftiina way ka bixisa. ayadaana duubtay oo isduubaysa. waa wax marka aad looga yaabo inuu qareenku yidhaahdo wixii halkaa ka muuqday ee indhaxumada ahaa ma aan arkaynin ama uma jeedin ama eedaysanadayda ma ahay. ayay bay ku qaylinaysa. waxaana ka cadinay iyada ahayd. weliba bacaha loo kala bedelayo, marna bacmada loo xirahayo, marna bac khafiif loo xirahayo, marna loo xirahayo go' sulka looga xirayo. dhammaan waa ay dib xiran tahay. afarta addini waxay isugu xiran yihiin, labada lugood iyo labada gacmoodba gadaal bay isugu xiran yihiin. ciqaabta noocaasa qofta maraysa mudane guddoomiye garsooraya waa marxuumad Sabriin. qofka marinaysana waa eedaysanad hodan oo iyadu duubaysa, gacanteeday ku duubaysa. ma waxay ku sii wadaa misna qaraac. waa qof xirxiran, sulka xarig uga xiran yahay, misna maxaa ku socda? garaac baa ku socda. waa ay naf baxaysaa. waa ay indha caddaynaysaa. waxay ku celcelinaysaa eedaysanadu madaxa meeshaad ka soo qaaday ku celi. waa qof naftu hayso, waa qof naf baxaysa. innaba ha yaraatee waxay muuqaaladani ay caddaynayaan inaysan innaba ha yaraatee wax arxan ah aysan ku jirin eedaysanada. haddaba waxay duubtay eedaysanadu 2 bishii 11 2025 abaare 17 daqiiqo oo subaxnimo. marxuumadda oo jirkeedu biskood yahay ayna leedahay soo jeedso anigu waxba ma qariyeen. waa 12 bay dhimanaysaa.
labiyo tobankii iyo koob iyo tobankiiba dhimashadeedaa socota naftaa ka baxaysa markan ay muuqaalkan duubaysaay waa labadii bishii 11 waxay u muuqataa qof soo yara biskoonaya oo dhaawacyadii hore ee tobnaad iyo soo gaaray ka soo yara biskoonaya intaa kumay ekaysan waxay bilowday ciqaabtii ay ku dhimanaysay marxuumad eedaysanaha oo raadinaysa qorshe ay uga baxsato cadaaladda ayaa isku dayday in ay uga hadasho kiiska si aan munaasab ahayn iyadoo tiri marka aan xanaaqo ma garanaya sida ay xaaladaydu tahay mana geysan dhibka intaan la eg gabadha 12 saac markay ahayd dadkeeda dhaqatay dadkeeda dhamaysatay markay dadkeeda dhamaysatay ee wadatay bay waxay samaysay maqribka markii la tukaday kadib ganjeelka furtay albaabkii ka baxday haddii ganjeelka furtay albaab ka baxday carruurtii yaraa waa ka badka loo baxay anna qolka jiifka ku jira haddaa qolka jiifka ku jirin ganjeelka jabtiisii maqlay waddanka soo horjeedaa waddada aniga isku dhiganahay waa ordabaaq waxay albaabkana istaagaysa laba yaryar baa banaanka jira ciidadana marka albaabka geskiisii taagan waan soo xariiray waxaa ku yidhi ilmaha maxaa u dhow kutuulida dadka baa ganjeelka furtay oo aad baxday maxaad ilmaha u soo xariin weyday oo ilmaha waddada aad ugu sii daysay adigu waxbay kununacda waxbay u tiri xarood baa ku iri gabar baa u yeeray waxaa ku yidhi hurud kale ilmaha iisoo xareen oo iisoo xaraysay kalkun kusoo wada xaroonay shaabug yar aan haystay waxaa ku yidhi maa hadda ii keenta inaad caynin ama maqlayda bas shaabuggii waan ku dhuftay markaa shaabugga ku dhuftay way igu soo buuday gacantay saa igula qabatay markii gacanta saa igula qabatay shaabuggii iskalakay qabatay ciyaarka bannaankay joogeen koritoorka dhexe kaa dhanka jikadaxii ugu xirnaa kanna waa xiray waxaan ku yidhi malaha maanta kusoo guulaysaa saasaan shaabuggii igula qabsaday markaa shaabugga ula qabsaday gacantii saasay ii qabatay ii laabtay haddii gacantii saa ii qabatay saa ii laabtay anigu waxaan sameeyey bas markaasaa waxaan sameeyey shaabuggii iyadoo hoosata ayna gacanteyda eysatayba gacanteyda midix qaaday halkaasaa saa dhuunta uga qabtay barandada derbigeeda waxaa taagay derbigiisa baa saa ugu qabtay dhuunteeda naga gacanteyda isidaa baan ku eri gacanteyda isidaa gacanta way iskuwakaysii qabatay marka iskuwakaysii qabatay baan gacanta saa ceejida kusii irid haddaan kusii irid alaayahay gacanta uu kusii deynayaa isii daaba itiri waa sii daayay shaabuggii baan gacanta marka isii daysaa shaabugga kuliista labaa u geliyay soco iga soo qabaysaa suuligay gashay way soo qabaysatay way soo baxday jikaday aaday way soo cashaysay way ii timi waxay u tiri ayay waxaan rabaa kaniin madaxa ay xanuunaya oo ku yidhi kuuma kicin kara cishaha ee waxaad samaysaa iska suga cishaha idinka koko uma dhexeeyaan maantadana ma qalqaylin kara maantadana waa iskala tagneen waxaad samaysaa asaabiina kuuma kicin karee sug baa ku eri cishahaaga wajika cishaha waxay u tiri haddaad ii timaad way karaahee kacsaasirin oo cishahaaga duko waan kacayaa oo wajkanaya bas hayaa iri kaniinka barstimool bay noqday joogayga oon ka soo qaadnay qolkeeda ay seexan jirtay bay seexatay 3 saac oo 10 niman markay ahayd oo ciyaalka cashada kala siiyey soo kala xariiray oo waxaa isir cishaha u kici haddaan isir cishaha u kici aan saabirin iri way keli weyday haddii keli weyda dhanka madaxa kusoo istaagay saabirin baa ibutaana iri intaada saasay ahayd ay kukuqanasiisaan baasooyada soo dhacday saankana ay way dhacdo markaasa waxaa u wacay awowgeed waxaa kuli gabadhii inay sugsan tahay in kalama aqaan way seexatay ishaan raba haddiina u bixiyo gabadhii ma qaran kara xaaladeeda noo ilmo wuuna noo yimid sidii baana labadeena waxaan ku daynay isbitaalka danta isbarsada dhimashana anigu meesha ma soo dhigan iyadoo nool baan issii daynay way qabaysatay way cashaysay wayna seexatay waxaa intaas dheer in la ogaaday haweenayda inay leedahay 13 carruura balse intii uu socday baaritaanka kiiska gabadha ayaa la isku dayay in wax lagu ogaado nolosha carruurteeda iyo inay jirdil u geysatay iyagana waxaa la caddeeyay inaysan jirin wax ay carruurteeda u geysatay waana arrin kale oo tuhun sii gelisay kiiska gabadha yar ee Sabriin maxkamadda ayaa sidoo kale soo bandhigtay muuqaallo naxdin leh oo ay adag tahay in indhaha u dulqaataan waxaa la arkayay eedaysanaha oo gabadha lugaha iyo gacmaha ka xiraysa geysanaysa jirdil xooggan oo aan loo dulqaadan karin
marxuumad Sabriin oo aan naf lahayn ayaana muuqaalada ka dhex muuqanaysay. Waxaa la sheegay in ninka haweeneyda qaba oo abtiga gabadha yar sidoo kale lagu soo daray kiiska maadaama la rumaysan yahay in muuqaalada qaarkood uu arkay oo uusan tallaabo ka qaadin. Su'aalo badan ayaa laga weydiiyey dhankiisana, waxaa jira in uu kiiskan wuxuun ka ogyahay. Ugu dambeyntii, magaalada Gaalkacyo waxaa ka socda mudaharaadyo xooggan oo lagu dalbanayo cadaalad loo helo marxuumad Sabriin, laguna diidan yahay dhammaan noocyada tacadiyada, dilka, iyo cadaalad darrada ka dhalatay in gabadhaasi ay nafta weydo. Si guud Soomaaliya waxaa waayihii lasoo dhaafay kusoo badanayay dilalka foosha xun ee ka dhacayay oo qaarkood ay salka ku hayeen aanooyin qabiil. Haatan waxaa bilowday kuwo kale oo ugub ku ah, waana arrin naxdinteeda leh oo wax ka qabasho u